إذا لهانتين waxaynu soo wada marnay goob waxbarasho waliba inteena badani waxaynu ku soo qaadanay muddo 12 sano ah anigoo ka cudur daaranaya inaan daliilo goobaha waxbarashada ee indhaha inoo jeexay haddana qodobadani waa kuwo aan marnaba la iska indhatiri karayn. Qodobka koobaad, individual assessment. Dugsiga gudihiisa waxaa ka jirta nolol ah marka uu hal arday guuleysto waxa guul daraysanaya mid kale. Tusaale ahaan, imtixaan marka la idinka qaado ardayda qaarna darajo sare ayay keenaan halka qayb kalena ay hooseeyaan. Laakiin nolosha caadiga ah ma jirto sheeko noocaas ah. Dadku way wada shaqaystaan, way wada macaashaan, wayna wada guuleystaan. Oo waxa ka jirta nolol la dhaho aan wada shaqaysano. Qodobka labaad, problem solving. Fasalka koobaad markaad ku jirto waxa baraha fasalka la siiyaa hage ama waxa afka qalaad lagu dhaho curriculum ama syllable hadda saad u taqaano. Markaad casharada dhigato waa lagu imtixaamayaa oo waxa lagu tijaabinayaa inaad casharkii aad soo dhigatay fahantay iyo in kale. Laakiin nolosha caadiga ah ma jiraan wax casharo la dhaho ee kaliya ta imtixaan ayaa jira. Waxaana la dhahaa waa habka ugu wanaagsan ee ilmo aadan ay wax ku dhigan karaan in marka hore la imtixaamo kadibna casharka la siiyo. Waxaana qisadan daliil u ah qisada aadka u weyn ee suuratu kahfi ku jirta ee dhexmaraysa nabiyullaahi Muuse calayhi salaam iyo sidii culimada qaar dhahaa nabiyullaahi Khadar. marka hore waa la imtixaamaya nabiyullaahi Muuse calayhi salaam doonta inankeeda la dilay adigu sheekooyinka fara badan lagu imtixaamay kadib waa ka u sheegaya fasiraadeeda. Qodobka saddexaad, failure. goobaha waxbarashada ee hadda jira guuldarradu waa ereyga loogu neceb yahay. haddii ardaygu maado ku siibto waa lagu canaananaya oo hadda xitaa heer bay gaadhay in la dhaho qofkii natiijada keeni waaya fasalka kama gudbayo. laakiin nolosha caadiga ah guuldarradu waa ereyga loogu jecel yahay waana macalinka qof walba oo dunidan ku nool. haddii aanad guuldarraysan ogow waxba ma qabatid.